sanadku markuu 1988 ayay ahayd waqtigii uu kaligii taliyay macaangaga ee Siyaad Barre uu tafaxaytay sidii uu waxa suuq lahaa guud ahaan ummadda Soomaaliland iyo waliba magaalooyinkii kala duwanaa ee ay deganayeen kaas oo dhamaantood la baabiyay guud ahaan wixii ay hanti lahaayeen kana qaxeen shacabka Soomaaliland guud ahaan dalka qaybihiisa kala duwan tan iyo waqtigaasi 1988 waxay ahayd maalmo lama ilaawaana oo bulshada Soomaaliland meel kastoo daafaca caalamka ka joogaan aanay ilaabi doonin kumanaan kamid ah muwaadiniinta Soomaaliland ayaa iyagu dalka uga haajiray dalalka kala gedisan ee caalamka si ay naftooda uga badbaadiyaan gumaadkii uu Siyaad Barre iyo wixii horseedka u ahaa ay ku hayeen dadka Soomaaliland lana xasuuqay dad aan waxba galabsan jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa madax banaanideeda kala soo noqotay wixii la oran jiray Soomaaliya sanadkii 1991 kaasoo dalka soo maray marxalado kala duwan oo mid waliba waayaheeda lahayn madaxdii kala gadisneed ee wadanka soo hogaamiyay ee Soomaaliland ayaa mid waliba meel fiican u soo gaarsiiyay halka kumanaan kamid ah muwaadiniinta Soomaaliland ee ku nool iyagu wadamada caalamka ahna qurba jooga Soomaaliland ay ku dhiiradeen in dalkoodii hooyo oo nabada ay mar kale ku soo noqdaan si ay uga maarmaan wadamada kala gadisan ee caalamka ee ay nolosha u doonteen waqtiyadii dalkan ay dagaaladu ka dhaceen qaar kamid ah qurba jooga Soomaaliland ee sanadka 2014 gaar ahaan waqtigan xagaaga aynu ku jirno dalkooda iyo dib ugu soo laabtay ayaa telefishinka qaranka Soomaaliland u xaqiijiyay horumarka uu dalku sameeyay muddadii ay ka maqnaayeen gaar ahaan waqtigan imika la marayo iyo xukuumadda uu hogaaminaya madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxyaabaha indhaha laga qarsan karin ee ay samaysay markaan eego dalku xitaa dadku siday ugu horumareen siday wax u barteen dhalinyarada wax baranayso badanaysa jaamacado badan oo ku yaala horumarka guud ee dalka ku soo kordhay sida wadooyinka dhismayaasha dalka kaabayaasha dhaqaalaha oo aad moodo inay aad u kabcayaan dhinac kasta haddaan eego waxa horumar aad u ballaaran baa dalka uu gaadhay aad baan u hambaleynayaa madaxweynaha iyo marwadiisaba nabadgelyada inaan ilaashana aad ba u wanaagsan tahay midda koowaad waxaan aad uga dardaarmayaa media waa meesha kaliya ee bini'aadamku ay eegaan isha kaliya ee cid waliba daawanayso qofku waa bini'aadam waa la qaltami karaa laakiin se in madaxda iyo dadka yacni la garanayo isku soo istaagaan oo iscaayaan waa wax aad u falxun taa waan ka dardaari lahaa dadka Soomaaliland nolosha hargeysa aad iyo aad bay isku bedeshay marka 5 sano ka hor bay igu dambeysay wax badan bay isbedeshay wallahi ganacsigeedu aad buu isku bedelay aad buu u kacay dadkii dhanaymanka waxay ku dhaqaaqeen shaqo iyo wax qabsadaan dadka aad bay imika u tooseen inay wax qabsadaan madaarka kamid wax ku isaga la indha taraadirisid waxyaabo badan baa wallahi kamid ah xagga garoonada kamid ah security-ga 999 baxtayaaci wax ku dad waxa lagu sameeyay 3 neen badqaacsa waxaan ku yiri wallahi waxyaabo badan baa jiray waxaan aad proud uga ahay alxamdulillah wadankaygi aan ka tagay isagoo la cashuurayo isagoonan meelna mari kareenin isagoonan ano faarxo maar dhigta daba mari karin guriga imka madaxtooyadu tahay laakiin uu morgan gali jiray aan maantana meel kastan tago aanan anytime aanan baqanayn oo kay dhaafay askariga iyo ciidanka iyo traffic aba ay aan aad proud ugu ahay maaragtay sida noo respect gareynayaan sida dadkoodu u jecel yihiin horumar badan baa la gaaray runtii wallahi walaalo wadankeena alxamdulillah rabbil caalamiin horumar aad u fara badan baan arkay intaan ka maqnaa xagga ganacsiga xagga wadooyinka xagga horumarka ما شاء الله مال والبا مول بالغ دسي ودooyinka aad bay wanaagsan yihiin الحمد لله رب العالمين dawladdu iyo shacabku aad bay u dadaaleen dalka tadawur farabadan buu sameeyeen waxa isbedel farabadan ka muuqda wadooyinkiiba la dhisay businesskiiba aad loo kabciyay moolal cusub baan arkay meherada cusub fooqiyaal cusub oo farabadan laga sameeyay dalka waxa isbedel baa ka muuqda alxamdulillah sanad kasta waqtiga xagaaga ama samarka ayaa qurba jooga Soomaaliland ay dalka dib ugu soo laabtaan kuwaasoo indhahoodu ay soo jiidanayaan horumarka la taaban karo ee dalka uu sameeyay Axmed Saki Daayir Xasan iyo Mustafa Maxamed Nuur Dheer ay telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa.